xilligu waa go dadkuna waxay ka soo baxeen abaar daran oo ku habsatay xoolahoodii iyo hantidoodii aad bay u faraxsanaayeen maadaama uu da'ay roob sababay inuu u soo go'o dalag ay kaga gaashaantaan ama ay cuni karaan 6 bilood ee soo socota Axmed oo ahaa wiil dhalinyaro ah oo ku jiray da'da 20-yada ayaa maalin kasta waxa uu tale ka heli jiray awowgii oo 80 jira laakiin nasiib darro muddo yar kadib awowgii waxa loo qaaday cisbitaal agtiisana waxa uu ka waayay talooyinkii uu siin jiray awowgii maalin maalmaha ka mid ah ayuu Axmed ku booqanayaa cisbitaalka awowgii oo jiifa albaabkii cisbitaalka marka uu Axmed soo garaaco ee uu gudaha u soo galo waxa uu awowgii aad ugu farxaya aragtida Axmed isla markiiba waa la iswaraysanaya xaaladda iyo nolosha halka ay marayso odaygii ayaa sidii caadada u ahayd Axmed yare marka uu soo ag fadhiisto waxa uu damcaya inuu siiyo taladii caadada u ahayd waxaanu ku oranayaa awow nolosha aad doonayso taladaasina waxay noqonaysaa taladii ugu dambeysay ee uu Axmed afka awowgii ka maqlo maadaama uu geeriyooday 2 cisho kadib kulankoodii haddaba muuqaalkan waxaan kugula wadaagi doonaa 4 farsamo oo aad kaga bixi karto nolosha aad dareemayso ee caajiska ah si aad uga baxdo marnaanshaha iyo caajiska aad ku dareemayso noloshaada farsamada koowaad ee aan kugula talinayaa waxay tahay inaad mar kasta waxyaabaha sida maalinlaha u qabato ka eegto meesha ay fursadu ka jirto oo aan ula jeedo inaad mar kasta waxyaabaha aad maalinlaha u qabato ka eegto dhanka iyo natiijada ka iman doonta mustaqbalka haddii aad tahay arday dhigta dugsi ama jaamacad isla markaana maalin kasta ku qasban inuu dhigto ama uu ka qayb qaato xiisado ama barnaamijyo aanay naftiisu qanaaco ku dareemayn waxaad isku daydaa inaad mar kasta ka eegto natiijada mustaqbalka taasoo ah inaad qaadan doonto shahaado ku horseedi doonta inay isbedel noloshaada ku keento haddii aad mar kasta ka eegto nolosha dhanka wanaagsan waxa kuu fududaan doonta inaad noolaato nolol farxad leh qodobka labaad ee kuu sahli kara inaad hesho qanaaco nololeed waa inaad raadiso waxyaabo aanad ku helayn haba yaraatee wax lacaga isla markaana aad ka helayso farxad iyo deganaansho taasi waxay kuu sahlaysaa inaanay lacagtu noqon indhaha kaliya ee aad leedahay waa muhiim inaad maalin kasta samayso shay ama 2 shay kuwaasoo kuu sahlaya inaad hesho deganaansho iyo farxad nololeed dhibaatada haysata badanaa dadkeenu waa inay badanaa sameeyaan waxyaabo aanay ku qanacsanayn kuwaasoo ka qaada farxadda iyo xasiloonida sidaa aawadeed waa muhiim inaanay marnaba lacagtu kuu noqon indhaha kaliya ee aad leedahay farsamada saddexaad ee kaa saari karta nolosha caajiska waa inaad samayso maalin kasta wax ka duwan nolol maalmeedkaaga taasoo aan ula jeedo inaad isku daydo waxyaabo ka duwan waxyaabaha sida maalinlaha u qabato ka soo muuqo meelaha aanad hore uga soo muuqan jirin ka qayb qaado barnaamijyo aanad hore uga qayb qaadan jirin naftaadana xujo kaga dhig inay samayso isbedel tagan oo u horseeda mustaqbalka inay noqoto mid hesha isku filnaanshiyo nololeed sidaa aawadeed waa muhiim inaad samayso waxyaabo ka baxsan nolol maalmeedkaaga noloshaada si aad isbedel ugu samayso waa lagama maarmaan inaad qaado talaabooyin cusub dadku badanaa waxay qanaacada ka raadiyaan waxyaabaha dadka badankoodu ay sameeyaan ama ku dayashada badani waxay kugu kalifaysaa inaad gebi ahaan noloshaada baadho qodobkaasina wuxuu nagu riixayaa farsamada afraad ee inoo sahli karta inaynu samayno qanaaco nololeed dadka sida aanay magacyadoodu u sinayn ayayna u sinayn waxyaabaha ay ka helaan farxadda iyo deganaanshiyo sidaa aawadeed waa muhiim inaad hesho waxyaabo aad jeceshahay oo adiga ku farxad geliya si aad u hesho qanaaco badan ogow haddii aad samayso waxyaabaha ay dadka badankoodu samaynayaan inaad ku dhex lumi doonto mawjadaha nolosha taasina waxay kugu sababi doontaa inaad adigu qof ahaan su'aal iskeliso oo aad isweydiiso qofka aad tahay iyo waxa aad doonayso ogow nolol bilaa ujeeddo ahi waa mugdi bilaa iftiina waxaan ku rajaynayaa guul sidoo kale waxay noo balana muuqaalkan ku xiga